السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا عبد الغني أحمد maanta waxaan ka hadlaynaa wax loo yaqaano BMI ama Body Mass Index. Body Mass Index waxa uu yahay iyo waxyaabaha laga faa'iido iyo muhiimadda uu leeyahay aan ka hadli doonaa. Marka ugu horeyso haddii la qeexo Body Mass Index wuxuu noqonayaa waa cabir lagu qiimeeyo miisaanka qofka ayadoo loo fiirinayo dhererka qofka. Waxaana lagu ogaan karaa Body Mass Index in miisaanka ama culeyska qofka loo qeybiyo dhererkiisa oo laba jibaaran. Xisaab ahaan wuxuu noqonayaa BMI-ga miisaanka qofka in loo qeybiyo dhererka qofka oo mitir ahaan ah oo square ah ama oo laba jibaaran. Tusaale haddii miisaanka qof uu yahay 70 kilogram dhererkiisana uu yahay 1.8 mitir, BMI-ga wuxuu noqonayaa sida tan 70 ayaa waxaan u qaybinaynaa 1.8 oo lagu dhuftay 1.8 kadib waxay noqonaysaa 70 oo loo qaybiyey 3.6 waxaa noo soo baxaysa 19.4 taas marka waxay noqonaysaa BMI-ga. marka qof miisaankiisu uu yahay 70 kilogram dhererkiisu uu yahay 1.8 mitir, BMI-giisu wuxuu noqonayaa 19.4. muhiimadda uu leeyahay BMI waa maxay? waxaa lagu ogaadaa dheelitirka miisaanka qofka, waxaa lagu ogaadaa qofka inay hayso nafaqo darro iyo miisaanka inuu hooseeyo ama uu zaa'id u cayiran yahay qofka. sidoo kale waa halbeeg lagu ogaan karo khataro la xiriira cudurrada qaar sida sonkorta iyo wixii la mid ah. heerarka kala duwan ee BMI-ga heerka ugu horeeya waa 18.5 iyo wixii ka hooseeya waxaa loo yaqaanaa underweight ama miisaan hooseeya. 18.5 ilaa iyo 25 waxaa loo yaqaanaa miisaan caadi ah. 25 ilaa iyo 30 waxaa loo yaqaanaa cayil xad dhaaf ah. 30 iyo wixii ka badan waa cayil zaa'id u xun ama waxa loo yaqaano obesity. haddaba haddii aad rabtid inaad ogaatid dheelitirka miisaankaaga iyo heerka caafimaadkaaga waxaad adeegsan kartaa qaacidada BMI ee aan horay u soo sheegnay. kadibna tirada kuu soo baxda waxaad ka ogaan kartaa celcelis ahaan miisaankaaga heerka uu yahay adoo u fiirinaya laga soo bilaabo 18.5 ilaa iyo 30 inta u dhexaysa.